bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV saakidin haya waxaa ka mid ah dawladda Qatar oo dawladda Soomaaliya ku gacansiinaysa dagaal ka dhan ah maamulada Galmudug iyo Jubbaland farqi warbaahineed oo u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya isbarbardhig cajiib ah oo lagu sameeyay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Muuse Biixi qaramada midooba oo ka hadashay dil loo geystay sarkaal sare oo ka tirsan iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Khayre oo diiday amarro uu soo saaray ra'iisul wasaare Khayre wararka dibadda wararka TV saakidin haya waxaa ka mid ah madaxweynaha waqooyiga Kuuriya oo laayay mas'uuliyiintii u qaabishanaa wadahadalka Mareykanka iyo carruurta iskuulada Ingiriiska dhigto oo iscadeeyay kadib midabtakoor lagu sameeyay daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan haddii aad ka mid tahay daawadayaashana ku cusub barta YouTube-ka fadlan subscribe dheh barteena si aad u heshid warar iyo warbixino quseeya Soomaaliya iyo caalamka dawladda Qatar ayaa dawladda Soomaaliya ku taageeraysa dagaal ka dhan ah maamulada Galmudug iyo Jubbaland xilli wali uu taagan yahay khilaaf xoog leh oo u dhaxeeya madaxda dawladda iyo madaxda maamuladaasi siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeda siyaasadda ay dawladda Soomaaliya ku maamusho dalka isla markaana ka tirsan xisbiga wadajir ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay dawladda Qatar kala kaashanaysa burburinta maamulada Galmudug iyo Jubbaland sidoo hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ra'iisul wasaaraha Qatar kula kulmay magaalada Maka al-Mukarrama isla markaana wuxuu sheegay in dalka Qatar uu u diray ra'iisul wasaare Khayre iyo taliye ku-xigeenka nabad sugidda Fahad Yaasiin taasina ay qayb ka tahay qorshe la doonayo in meesha looga saaro maamulada Galmudug iyo Jubbaland sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu shaaca ka qaaday in qorshahan uu taliye ku-xigeenka NISA Fahad Yaasiin u tagay dalka Itoobiya si loo helo awood ciidan iyo mid dhaqaale oo lagula dagaalamo Galmudug iyo Jubbaland sidoo hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ugu dambeyntii siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ugu baaqay dad ugu yeeray kuwa samaha jecel inay ka hortagaan shirqoolo uu sheegay in loo maleegayo maamulada Galmudug iyo Jubbaland kuwa oo ka imaanaya madaxda dawladda Soomaaliya xilli uu cirka isku sii sareeraya khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya ayaa waxaa soo baxay farqi dhinaca warbaahinta oo u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii xumaanaya xiriirka u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya iyadoo dawladda Kenya ay qaadayso go'aano lagu cadaadinayo Soomaaliya si ay uga tanaasusho muranka badda iyo dacwadda taalla maxkamadda ICJ-da Kenya waxa ay qaaday tallaabooyin badan oo aan u wanaagsanayn diblomaasiyadda labada dal waxayna dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ay ku tilmaameen go'aanada Kenya tallaabooyin hordhac oo ay xigi doonaan go'aano kale sida ka muuqata habdhaqanka Kenya dawladda Kenya waxa ay bilowday barnaamijyo baraarujin ah iyo kicin dadweyne oo ay ka bilowday warbaahinta dalkaasi waxaana dhowr idaacadood iyo TV ku yaala dalkaasi laga sii daayay doodo mid ah oo ku saabsan muranka badda ee labada dal sidoo kale Kenya waxa ay warbaahintu u furtay in ay si toos ah ula xiriiraan wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya si loo siiyo warbixino ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda labada dal waxyaabaha kale oo ay Kenya sameysay waxaa ka mid ah in muwaadiniinteeda ay la wadaagto xog iyo faahfaahinno dheeraad ah oo ku saabsan xiisadda dawladaha dariska barnaamijyada ka baxay warbaahinta Kenya waxaa ka mid ah su'aalo dadweynaha Kenya la weydiinaya oo ahaa haddii ICJ ay u go'aamiso Soomaaliya dhulbadeedka Kenya maxaa la gudboon muwaadiniinta Kenya tallaabo noocee ah ayay kula tahay in dawladda Kenya ay qaadayso si loo difaaco xuduudaha dalka miyay saxan tahay in Soomaaliya oo kumanaan qaxooti ah ay halkan ka joogaan ay ku xadgudubto xuduudaha Kenya iyo barnaamijyo kale ayaa ka mid ahaa barnaamijyada ay tabanayeen warbaahinta Kenya oo lagu kicinayay dadweynaha reer Kenya kaliya ma ahan in Soomaaliya ay dhibaatooyin iyo xadgudub kala kulmaysa Kenya balse waxaa si la mid ah weeraro qarsoon iyo mid banaanka yaalba ku haya dawladda Soomaaliya dawladda Itoobiya laba jeer ayaa toddobaad gudihiis ay dawladda Itoobiya ku xadgudubtay Soomaaliya waxaa mar ay ka dhigtay gobol hoos yimaada Itoobiya marna waxa ay sheegtay in Somaliland iyo Puntland ay dalal yihiin waxayna dhammaantood ahaayeen ku xadgudubka midnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi ayaa sheegay in Kenya iyo Itoobiya ay doonayaan in sidii Israa'iil ay u gumaystay dhulka Falastiin ay u gumaystaan Soomaaliya isla markaana ay ka aamusan yihiin dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dhammaan shacabka Soomaaliyeed xadgudubyadaas ee Kenya iyo Itoobiya ay ku hayaan Soomaaliya
wasiir ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre ayaa la sheegay in dhowr jeer uu ka hor yimid amarro iyo go'aano uu soo saaray ra'iisul wasaare Khayre oo inta badan wasiirada xukuumadda ay aad u taageeraan. golaha wasiirada Soomaaliya waxay ka kooban yihiin ku dhawaad 70 wasiir marka la isku daro wasiirada, wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlayaasha xukuumadda Khayre oo marar badan lagu sameeyay isbeddello waaweyn. in badan oo ka mid ah wasiirada xilalka laga qaaday iyo kuwa iscasilay waxay xilalkooda ku waayeen diidmo iyo in ay daacad u noqdaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. wasiirada diiday in ay daacad u noqdaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ee xilalka laga qaaday waxaa ka mid ah Yuusuf Garaad Cumar, Cabdi Faarax Juxa, Qadre Axmed Ducaale, Cabdi Fataax Ibraahim Geesay iyo Sheekh Daahir Maxamuud Geele. hadda golaha wasiirada Soomaaliya waxaa ku jira hal wasiir oo aan si toos ah u hoos imaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre isla markaana aan loo amrin sida wasiirada kale ee ku jira xukuumadda Soomaaliya. Axmed Ciise Cawd, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo hore u ahaa safiirka Soomaaliya ee Mareykanka, ayaa la sheegay inuu yahay wasiirka kaliya ee aan loola dhaqmin sida wasiirada kale. shabakadda wararka TV ayaa ogaatay in wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya uusan badanaa xaadirin xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo kulamada golaha wasiirada. sidoo kale waxa uu jibiyay amarro badan oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. amarrada uu diiday qaadashadooda wasiirka waxaa ka mid ah in uu ra'iisul wasaaraha ku wargeliyo marka uu doonayo in uu waraysi bixiyo ama uu soo saaro war-saxaafadeed. sidoo kale Axmed Ciise Cawd ayaa iska diiday in uu ka qayb qaato ololayaasha ay ka qaybgalayaan golaha wasiirada ee lagu ammaanayo ra'iisul wasaaraha marka warbaahinta ay la hadlayaan wasiirada. waxyaabaha kale oo ay ogaatay shabakadda wararka TV waxaa ka mid ah in wasiir Cawd uu shirka golaha wasiirada ka sheego qaladaadka xukuumadda, taa oo ah qodob aysan wasiirada kale ku dhiiran karin. waxaana horay xilalkooda ugu waayay Yuusuf Garaad, wasiir Juxa iyo Daahir Geele. dadka aan la hadalnay ayaa noo sheegay in wasiirku uu toos ugu xiran yahay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya, go'aanada uu gaarana uu ka talageliyo madaxweynaha Soomaaliya, waqtiyada qaarna la geeyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo shirka golaha wasiirada, balse uusan ahayn sida wasiirada kale ee u nacamleeya ra'iisul wasaare Khayre. waxaa isbarbardhig cajiib ah lagu sameeyay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Muuse Biixi kaas oo ku aadanaa kala fogeynta bulshada. siyaasi Mustafa Cabdi Ciise oo loo yaqaan Mustafa Sheene ayaa isbarbardhig cajiib ah ku sameeyay qaabka bulshada ay madaxweynaha u yihiin isugu hayaan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Muuse Biixi. siyaasi Mustafa Sheene ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi uu awoodi kari waayay inuu isu soo dhaweeyo sidoo hadalka u dhigay ilma adeeradii marka laga yimaado bulshada kale ee reer Somaliland. waxaana siyaasigu uu sheegay in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu kolba dareys u xiranayo sidii uu u midayn lahaa malaayiin qof oo uu maamulo kuwa oo kala diina sida uu hadalka u dhigay. siyaasi Mustafa Sheene ayaa madaxweyne Muuse Biixi ku dhaliilay kala qaybinta bulshada reer Somaliland isagoo ka dhawaajiyay in Somaliland uusan wax u qaban Muuse Biixi muddada kooban uu talada hayo. waxaana intaas uu ku daray in Muuse uu xakameyn la'yahay dad qoys iyo qaraabo ah sida uu hadalka u dhigay ee uu madaxweyne u yahay. wuxuuna intaas ku daray in madaxweynaha Kenya uu waqti geliyo sidii uu u midayn lahaa malaayiin qof oo kala diin ah kuwaasoo danta dalka ay ka dhaxayso. Somaliland waxba u noqon maayo mid danaysi kula jooga iyo mid u kala abtiriya toona, waqtiguna waa uu gaaban yahay ayaa uu yiri siyaasiga oo aad u dhaliilay madaxweyne Muuse Biixi. qaramada midoobe ayaa ka hadashay dil loo geystay sarkaal ka tirsanaa qaramada midoobe. xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa warbixin ka soo saaray dilka Maxamed Cabdi Khayre oo ka mid ahaa shaqaalaha qaramada midoobe ee gobolka Mudug. war-saxaafadeed ay soo saartay qaramada midoobe ayaa ku cambaaraysay dilka Maxamed oo ka mid ahaa shaqaalaha ammaanka ee qaramada midoobe ee fadhigeedu yahay magaalada Gaalkacyo. siihayaha ahna ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobe ee Soomaaliya Risondon Sinaga ayaa maamulka Galmudug ka dalbaday in ay gacanta ku soo dhigaan dadkii dilkaasi geystay. waxaa tacsiyo u diray qoyska uu ka baxay Maxamed Cabdi Khayre oo lagu dilay habeen ka hor koonfurta magaalada Gaalkacyo xilli uu ka soo baxay masjid uu ku tukaday salaad.
sihayaha ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa uu sheegay in dhammaan shaqaalaha qaramada midoobay ee Soomaaliya ay ka xun yihiin dilkaasi gaalkacyo lagu geystay mas'uulkaasi ka tirsanaa qaramada midoobay. Dabley hubaysan ayaa habeen ka hor magaalada gaalkacyo ku dilay Maxamed Cabdi Khayr oo ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay, mana jirta ilaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi iyo cid gacanta lagu soo dhigay. wararka dibadda wararka TV saaka idin hayana waxaa ka mid ah daawadayaal. hogaamiyaha waddanka waqooyiga Korea ayaa laayay mas'uuliyiintii u qaabishanayd wadahadalka dowladda Mareykanka. qaar ka mid ah warbaahinta caalamka ayaa si weyn uga hadlaysa warbixin cusub oo sheegaysa in hogaamiyaha Koreada Waqooyi Kim Jong Un uu laayay inta badan hogaamiyaashii u qaabisanaa wadahadalladii Mareykanka iyo Koreada Waqooyi. waxaa la xaqiijiyay in la dilay wakiilkii gaarka ahaa ee North Korea u qaabilsanaa wadahadallada Kim iyo Trump ee ka dhacay magaalada Hanoi ee dalka Vietnam 28 Febraayo 2019. ninka la dilay oo lagu magacaabay Kim Yong Jo ayaa ahaa gudoomiye ku-xigeenkii guddiga xisbiga shaqaalaha ee uu hogaamiyay madaxweynaha hadda talada hayo ee waqooyiga Korea. ila muhiim ah ayaa xaqiijiyay sidoo kale in la toogtay 4 mas'uul oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee waqooyiga Korea, kuwaas oo qayb ka ahaa xubnaha qaabishan wadahadallada u socday Koreada Waqooyi iyo dowladda Mareykanka. hogaamiyaha talada haya ee Koreada Waqooyi ayaa ku eedeeyay dadka uu laayay inay basaaseen dalka Mareykankan xog muhiim ah ay la wadaageen sidoo hadalka u dhigay. wuxuuna intaasi ku daray in cid kasta oo dalka basaasta lagu qabanayo gacan bira. carruurta iskuulada Ingiriiska dhigata ayaa bilaabay inay iscadeeyaan si aan midabta koor lagu sameeynin, sida ay sheegtay hay'adda samafalka Ingiriiska ee magaceeda loo soo gaabiyo NSBCC. carruurta dalkaasi ayaa jirkooda marinaya kiimikada la isku cadeeyo si markay iskuulka joogaan loogu xog sheegan. daraasad ay samaysay ayaa ku sheegtay in takoorka midabka iyo xog sheegashada carruurta dhexdooda ah 5 meelood meel ay korortay sanadihii 2015-2016, waxaana dhacay 10,500 oo faldambi ah oo la xiriira midabta koor laga galay carruurta dalka Ingiriiska oo dhan sanadihii 2007-2008, taa oo ka dhigan celcelis ahaan in maalintiiba uu dhaco 29 faldambi oo la xiriirta midabta koorka. inan yar oo 10 sano jir ah ayaa NCBCC ku tiri waxaan isku dayay inaan wajigayga cadeeyo maadaama ardayda kale ay ugu sheegeen in midabkaygu uu wasakh yahay. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad kala socoteen wararka TV saaka waa naga inta.